aad iyo aad umahadsan tahay. Waan kaaga mahadcelinaa Nation Media iyo asxaabta daawanayso. Sida caadiga ah talaalka ay keentay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada. Waa noocii loo yaqaanay Oxford AstraZeneca noocii loo yaqaanay noocaas waxa waaye aan keennay oo waddanka yaalo. Isaga waxa waa la isticmaalaa kaligiis hana yimaaday waa halka wadamada qaarkood dhowr xabo loo wada geeyay, laakiin anaga noocaas hadda nagu soo hormaray oo program ay ku heleysay wadamada Afrika yacni ku jiro xaaladaha oo dhaqaalaha hoos ku jiro program loogu faa'iideynay ay ku heleen oo donation ahaan ay u keentay hay'adda caafimaadka adduunka WHO. Programkaas aan ku helnay kiya hadda noo shaqeynayo alxamdulillah. Wasaaradda caafimaadka waxay dejisay policy ama plan oo waxay dejisay meel kasta lagu gaarsiinayo. Qorshahaasana waxaan qorsheynaynaa inaan qaadano dadka loogu talagalay oo qaadanayna waxa waaye waa la qoray oo category ama qaanadaha ay kala jiraan oo ilaa 6 qaanada loogu talagalay in yacni lagu bilaabo. Waxaan ula jeedaa shaqaalaha caafimaadka iyo shaqaalaha xuduudaha ka shaqeynaya, sidoo kale booliiska ka mid ah dadka da'dooda ka weyn tahay 50 sano ka mid ah. Sidoo kale waxaa ka mid ah dadka aanan yacni aan waxa waaye front line markasta ku jiro oo yacni cudurkani waxa waa la dagaalamay ayaa ka mid ah. Marka ilaa 6 qaybood waaye 6daas qaybood waxa waa loo dejiyay oo beeshka waxaa ka helaysan wasaaradda caafimaadka. Sidoo kale xarumaha oo public dhan waa la wada dhigay si dadka dhan ay u gaaraan. Sidoo kale waxaa la gaarsiiyay gobolada dhan la gaarsiiyay oo Soomaaliya waa loo qeybiyay. Sidoo kale magaalada Muqdisho maadaama ay yacni leedahay xarumo caafimaad oo primary health care ay leeyihiin MCG ku yaalaan 17 degmo ayagana waa la gaarsiiyay oo si free lagu gaarsiiyay inay talaalkaas lagu bixiyo. Talaalkan sida ogsoonahay waa 100% free waaye, qofka wax shuruudo lagu xiraayo oo cost oo la xiriir ma jiro. Waana halka shay aan haysano hub ah ama cudurkaas aan ula dagaalami karno ama ugu hortagi karno kaliya hadda noo bannaan waa in talaalkaas la wada qaato waaye. Anoo fursadan ka faa'iideysanayo waxaan jeclaan lahaa in talaalkaas waxa waaye 100% la qaato. Waa safe waxaana ansixiyay hay'adda caafimaadka adduunka, midowga Yurub, Mareykanka, Ingiriiska. Sidoo kale kulli way ansixiyeen inuu safe yahay. Waxyaalaha propaganda laga sheegay oo dhiig xiran uu sababa iyo maskaxda dhiig ku furaa iyo dhalmadu saameynaya waxaas waa propaganda waaye. Siyaasadda isdiidan oo dawladda isdiidana waxa waaye barnaamijkaas ku lug leh, laakiin inta hadda anaga ka aragnay study la suubiyay oo adduunka laga suubiyay wax oo saameyn ku yeeshay ma jiro. Wax kastana waxay leeyihiin saameyn u yeelan karaan, laakiin hadda sida isaga khatarta laga filanayo iyo faa'iidadu leeyahay waxa 100% badan. Wax kastana waxay leeyihiin khasaare leeyihiin. Biyaha caadiga aan cabayno haddii uu qofka iska badiyo dooska loogu talagalay uu iska badiyo oo fuustada ama caafiga ah waxay yeelanaysaa saameyn yeelanaya qofka inuu ku dabaqo, inuu hunqaaco, in yacni uu naqas ku dhawo waxyaalo saameynaysa hadduu overdose u qaato oo loogu talagalay. Marka talaalka wuu yeelan karaa saameyn oo qandha ka mid ah, lafo jajaba ka mid ah, laakiin saameyn hadda maskaxda inuu dhiig ku furo iyo waxyaalaha hadda aan ka sheekeynayno ma lahan. Waa waxa kaliya aan yacni aan ku dagaalami karno oo aan haysano oo waayeelada iyo dadka ka shaqeynaya front line iyo dadka xuduudaha ka shaqeynaya macallimiinta iyo yacni ay qaadan karaan waaye. Policy-gaas iyo wasaaradda dejisay aana lagu dhaqmaa kadib waxa waaye wixii ka soo baxo waa wax yacni aan dadkii ka soo haro aan siinayno. Nasiib darro waxaa muuqata hadda talaalka markii la keenay in ay qaadanayaan dad dhalinyaro u badan qaadanayaan. Way fiican tahay inay qaataan. Anaga 3 shuruud keenaysa inay yacni dhalinyarada qaataan. Tan ugu horeyso waa yacni 75% dhalinyarada waddanka u badan oo ayaga waxa waaye inay qaataan waxoogaa yar keenaysa yacni inay ka bataan dadka waayeelada. Qodobka labaad waxa waaye in dhalinyarada qaataan dadka ugu horeeya cudurka faafinaya ayaga waaye. Marka inay qaataan waxa waaye ayadana way ka hoos garanaysaa
oo meelaha in lagu arko dhalinyaro badan oo social media image-kooda isticmaalaya inaad aragteen laga yaabaa. Qodobka saddexaad oo isleenahay in dhalinyaradu ay ku badan yihiin waxay noqon kartaa dadkii hore oo waayeelka ah way adag tahay teknolojiyada iyo waxyaalaha hadal oo la soo saaray inuu qofka dhaqso aamino way adag tahay. Marka ayadana waxaan isdhihi karnaa saddexdaasi shay aa fududeynaysa yani inuu dhalinyarada ay qaataan. Laakiin waxaa habboon guriga dad ka soo baxayo oo dhalinyaradaas xaafadda ka soo baxayo oo ayaga istalaalaya inay hore u soo wadaan dadka waalidiinta iyo dadka u nugul inay talaalkaasi qaataan. Talaalka mar kasta waxa waaye waa safe waaye. waa la soo tijaabiyey wuxuu soo maray stage oo ilaa 3 xaaladood soo maray in la hindiso in la tijaabiyo oo yani lagu tijaabiyo xayawaan lagu tijaabiyo kadib in ixtiraac kale lagu suubiyo oo la soo saaro ilaa 3 process soo maraa ama hanaan soo maraa waana wax yani adduunka dhan u aqoonsado oo si in la qaato ay habboon tahay. way dhici doontaa waana la filaa in qof aan talaal qaadan uu yani uusan joogi doonin ama uusan safri doonin way dhici doontaa. Marka hadda fursad aan haysanaa qof kasta waxaan kula talin lahaa inuu talaalkaasi waxa waaye uu qaato waa waxa kaliya uu isagana ku badbaadayo qoyskiisana waxa waaye uu ku badbaadin karo. Dooskan koowaad hadda la qaadanayo sida caadiga ah kiisa kala marka la qaadana muddana u dhaxayn doonto. Tirada hadda la keenay waxay ahayd tiro tijaabo ah yani tijaabo waxaan ka wada tirada ugu horeysay oo nasiib aan u yeelanay ahayd kambaniyal badan soo saaray oo ilaa 7-8 talaal la approve gareeyo in la qaadan doono. Laakiin hadda kan anaga noo yaalo noocan noo yaalo waxa laga yaabaa shirkadda wali way wada oo wali maysan joojin yani inta hal mar soo saartay maysan joojin way soo saaraysaa wali laba shay uu noqon doona hadda si free aan ku helnay in birina si free aan hawa boqolkiiba ku helno ama in yani la soo iibiyo oo la soo gado wasaaradda caafimaadka ay soo iibiso kadib sidaas qofka muwaadinka uu ku helo oo si free lagu daweeyo. Laakiin inta hadda la keenay waa in loogu talagalay 6 qodob aan soo sheegaynay oo dadka caafimaadka iyo da'da iyo macallimiinta iyo booliiska iyo dadka xuduudaha ka shaqeynaya dadkaasi loogu talagalay inay qaataan ama marka hore loo keenay. waan rajaynaynaa tiradan tiro ka badan in la keeno waana waxa waaye wax lagu talo jiro oo wasaaradda caafimaadka iyo madaxa talaalka ay ka shaqeynayaan waaye wasiirkeeda wasiirka caafimaadka ay ka shaqeynayaan si wadajir ay kaga shaqeynayaan in talaalkaas dib loo helo waana la heli doonaa sida aan yani boqolkiiba boqol asleeyahay. haddaan fursadan ugu faa'iideysto talaalka yani oraha maalin aan kusoo koobay jirtay oo meelaha baraha bulshada aan ku qoray haddaadan talaalka adiga aqaadanayn propagandada iyo beenta afaafinaysa ka jooji yani ma fiicno waxyaalaha aadan hubin inaad markasta ay sheegtid diintana waa way naga reebtay. talaalka boqolkiiba boqol waa safe dad khubaro lagu tijaabiyey waxaa lagu tijaabiyey dad xilalaha lagu tijaabiyey qadarta halkeeda waaye ilaaha yani noo qadaray laakiin 100% wax tijaabo soo galay oo waqti lagu bixiyay oo wali waqti kooban lagu bixiyay waaye waa safe waaye. wadanka markii maalinka ugu horeysay la keenay waad aragteen wasiirka wasaaradda caafimaadka ma naga naf badno naf kale spare ma lahan ayada lagu talaalay sidoo kale madaxweynaha dalka lagu talaalay wuu qaatay yani labadaas in la talaalo waxay keenaysaa waxa loo jeedaa yani in dadka kale ay si sax u qaataan. adiga haddaadan talaalka u baahnayn waa la gaari doonaa xilli ay yani qasab noqon doonto ama aad baahideeda dareemi doonto laakiin just focuska iyo dadka qaadan doona in la wareeriyo waxoogaa yar aad ay noo dhibaysaa oo dad badan oo qaadan lahay ama waalidiin badan oo qaadan lahay in propagando sida koronihii oo kale laga faafiyo waxa waaye aadan yani aan u dhalinsanahay dadkaasi waana ka xunnahay waxaana dhihi lahayn in la joojiyo propagandada. talaalkan waan ku celcelinaynaa meel kasta oo laga sheegay wasaaradda caafimaadka iyo khubarada saraakiisha caafimaadka meel kasta lagu qoray oo muuqaalo badan laga faafiyey boqolkiiba boqol waa safe wuxuuna safe u yahay nafsadaada iyo qoyskaaga wax saameyn uu leeyahay ma lahan qandhadaasi iyo jirgo'aas habeenada ugu koowaad ah ayuu leeyahay taasna waxaa ka wada siman talaalada kale oo loo qaato dabeesha iyo wax la midka ah ay ka wada siman yihiin waa waxa waa wax virus dhintay oo jirka lagu talaala waaye
marka khasab wuxuu yeelanayaa jirka inuu difaac suubiyo, ay suubiyaan dagaal inuu suubiyo, qandho inaad waxa waaye isku aragtid iyo jir gogo iyo hurdo badan inaad isku aragtid laga yaabaa. Marka wax weyn ma ahan waxaas waa 2 maalmood iyo 1 maalmood wax ku kooban waaye.